inkastoo saddexdii maalin ee u dambeysay laga dhursugayay natiijada doorashooyinka madaxtinimo ee wadanka Kenya ayaa guddiga doorashooyinka waxa ay ku dhawaaqeen musharaxa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka Kenya. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee wadanka Kenya Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu yahay musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha ee Kenya. Having fulfilled the requirement by law and having garnered 8 million waxaan ku dhawaaqayaa natiijada anigoo raacaya dastuurka waddankan Kenya. waxaan ku dhawaaqayaa natiijada anagoo soo tirinay gobol tuulo ilaa degmo sida uu qabo dastuurka dalkan Kenya. markaan eegnay natiijada doorashada waxa uu sheegayaa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha waddankan Kenya halka ku-xigeenkiisa uu yahay William Ruto. Honorable Uhuru Kenyatta as president elect and Honorable William Ruto as the deputy president elect. qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha madaxtinimo ee uu gaaray madaxweyne Uhuru Kenyatta. doorashadu waxay u dhacday si cadaalad ah waxaana ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. doorashadu si cadaalad ah u dhacday inaad ku wada qanacdaan baa la rabaa maadaama si cadaalad ah u dhacday maxaan ku raahdaa inaad soo dejisaan oo wadanka aad dejisaan. doorashadu si fiican bay noogu dhacday dadkuna saaka way soo baxeen dukaamadii iyo ganacsiyadii way furan yihiin nabadgelyo weeye magaalada Nairobi. madaxweynaha marka la doortay ee Kenya Uhuru Muigai Kenyatta oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii codadkooda siiyay isagoo dadka reer Kenya ugu baaqay inay nabadda ka wada shaqeeyaan. Lastly and most importantly, to our brothers who were worthy competitors, ugu dambeyn walaalihii la tartamay waxaan rabaa inaan u sheego tartan walbo la galo waxa uu leeyahay guul iyo guuldaro. wadankan waa mid naga dhaxeeyo mana yihiin dad cadow isku ah. waxaan rajaynayaa inay iga aqbalaan wax walba. waxaan u tagayaa gacan saaxiibtinimo gacan walaaltinimo waxaan u sheegayaa in wadankan oo naga dhaxeeyo si wada jiraan u dhisno si aan horumar u gaarno. In order for us to succeed, and Kenyans want us to succeed. Umar Aqil, SNTV, Nairobi.